waxaynu u barinay waalidada u barinay oo asxaabta u barinay gabadha iyo wixii ehelkeeda iyo wixii waalidkeeda iyo wixii islaama in ilaahay sadaqada ay la baxday ilaahay u waafajiya. halkani waa kaamka barakacayaasha ee Shangalle ee duleedka magaalada Buuhoodle ay ku jiraan dad aad u tiro badan oo ku ciroobay abaartii soo martay dalka Soomaaliya. Haddaba iyadoo kaamkaas ay ka jirto xaalad biyo la'aaneed ayaa deeq biyo ah oo dambooyad waxaa gaarsiisay gabadh muxsinada oo ku nool dalka dibadiisa. deeqdan biyaha ayaa waxaa loo soo wakiishay xildhibaan Yaasiin Axmed Cali isagoona gaarsiiyay kaamka barakacayaasha ee Shangalle. waxaana ugu horeyntii halka hadlay xildhibaan Yaasiin Axmed Cali asagoona ugu baaqay walaalaha muslimiinta in ay ka soo qayb qaataan gargaarkan loo fidinayo dadkan tabaalaysan ee ku ciroobay abaartii soo martay dalka Soomaaliya. maanta oo ay taariikhdu tahay bishii saddexaad 2022 waxaanu joognaa kaamkii Shangalle ee barakacayaashii IDBgii baanu joognaa. waxaanu wadnaa booyad biyo ah oo biyaha macaana oo aan loogu talagalay kaamkan dadka jilicsan ee waayeelka iyo caruurta. biyaha waxaa la baxday gabadh muxsinada oo joogta dalka Australia. gabadhaas waxay tiri magacayga yaan la sheegin. biyaha waxaanu la baxay bayti waalidkay hooyada iyo aabahay baanu la baxay. ilaahay waxaan u weydiinanaa sadaqada maanta maalin ay ka wacan tahay ma jirto. sadaqada ay waalidkeedu la baxday in ilaahay gaarsiiyo. ilaahay waxaan u weydiinanaa gabadhaas wax wacan bay shaqaysatay. biyo qadhaadhumay soo qaadina biyo macaan bay u keentay. masaafo aad iyo aad u fog baa biyaha laga keena. haddana waa loogu shubayaa wakaas way socotaa. gabadha waa loo ducaynayaa annana waa u ducaynaynaa. maamooyinka iyo caruurta aad arkasaan ee meesha bannaanka degan ee biyaha aan helayn ee baadka aan helayn way ku baxasaa dadkii ay ku bixi jirtay baa loo shuba. gabadha waa u ducaynaynaa. gabdhaha kale muxsiniinta ah ee wax uruurinaya ee dadkan markay arkeen kliibkooda ka soo jawaabayna iyagana waa u mahad celinaa waana u ducaynaynaa. meesha waxaa ku nool halaaqad aad iyo aad u fara badan saqiir iyo kabiirba. halaaqadaasi waxaa meesha loo dejiyay 2800. hadda wax yar baa ka dhacay. hadda toos baa loo soo degaa. dad baa ku soo biira barakacayaasha oo nafi keentay oo soo mahdowsaday biyaha riiga wax kale markay waayeen. waxaanu u ducaynaynaa oo ilaahay baa mahad leh u mahad celinaynaa gabadha muxsinada ah ee noogu deeqday biyaha xareeda ah ee waqtiga jooga ee aanu u baahannahay. waa u ducaynaynaa. ilaahay waxaanu uga baryaynaa muraadsameheedo dhan ilaahay siiyo. muraadsameheeda in ilaahay siiyo. waalidkeedna alla sii gaarsiiyo. waqaf ilaahay uga dhigo. ilaahay jannada ku geeyo. ilaahay jannada qabowgeeda sida ay dadka u qaboojisay gubanaya beerka gubanaya waalidkeedna alla ugu qaboojiyo. ilaahay naxariis ku siiyo. iyadana ilaahay muraadkeedo dhan ugu sahlo. ilaahay jannada geeyo. ilaahay naxariis siiyo. ilaahay iimaanka ku sugo. ilaahay risaaqad waasaca siiyo. ilaahay idamkiisa saasaanu gabadha baanu uga baryaynaa. ilaahay baanu u barinay. ilaahay baanu u barinay ka wax baxsha waa alle. ilaahay baa nooga soo qaaday. iyadana ilaahay waxsan baanu uga barinay. ilaahay hasiyo waxsan. waxaynu u barinay waalidada u barinay oo asxaabta u barinay gabadha iyo wixii ehelkeeda iyo wixii waalidkeeda iyo wixii islaama in ilaahay sadaqada ay la baxday ilaahay u waafajiya. in ilaahay u laban laaba. in ilaahay u laban laaba. dambigeeda in ilaahay ku dhaafa. kii waalidkeed ilaahay inuu ku dhaafa. dirajo khayr qabta in ilaahay ku siiya. deeq fara badan oo ay ka soo horkalaaban weydo in ilaahay ka siiya. annakana ilaahay calaf nooga dhiga. caafimaadna ay nala galaan. aan ku nimcaysana. ilaahay waxaanu ka barinaa waalooyinka ka barinaa waa saxaabta ka barinaa oo calooshayada uga soo goynay waxsan oo aan loo quudin oo laga qaadin in ilaahay siiyo. in ilaahay siiyo. in ilaahay siiyo. alxamdulillah. waa la arkayaa biyo ma dhaansan karo. dadkaygii dhul fog buu wada jiraa. soo marad maqashay maaha qof uun iila yimaada igu yimaada. sadaqada ay la baxday ee aanu u baahannahay ee dadka kaamka jooga oo baqtiga u ahaa ciroole iyo caruur waalidiinteedii Allah sii gaarsiiyo.
waalidiinteedii allaha sii gaadhsiiyo maytidii ku xaq iyo xurmo lahayd ee wax ka sugaysay ee xabaalamiyuday ee maalintaa khamiisaad u fadhiday allaha sii gaadhsiiyo ilaahay ha u maafuliyo durdurro aan go'in iyo darajo caaliya allaha uga yeelo kafanta allaha ugu jidiidiyo qabriga allaha ugu waasiciyo godka allaha ugu waasiciyo durdur aan go'in iyo darajo caaliya allaha uga yeelo ilaa qiyaamo quudaan dhammaan allaha uga yeelo iyadana muraadkeeda san ee suuban ee qalbiga ku hag doonta qulubta ka doonta maskaxda ka doontay allaha ku siiyo muraadsamaha allaha u sahlo madaxda allaha u raajiyo moorada allaha ugu kordhiyo aad baan u salaamaynaa aad baan u salaamaynaa aad baan u salaamaynaa aad baan ugu mahad celinay gabadha aad baan gabadha ugu mahad celinay waqtiga la haraadan yahay maatada caruurta waxaanu haynaa ooyeysa ee wax fixi loogu kariyo loo waayay baanu haynaa gurigaas sii jeeda imikaba oo aan dadkii waxba haysan oo aan ari u xaraysnayn oo aan geel u xaraysnayn oo hawd xagga ugu shisheeye ka yimi ilmaha yarka ah saas u jawanaya subax walba caanaha markaan ugu cadayno badax uu ka kala go'ayaa maxay haytay way ka kala go'ayaa caana boodho ma haysto waxba ma haysto ninku ma shaqayn karo fiixi buu qabaa waa guriga halkaa ka sii jeeda kaana waa arki kartaan iska ogi shilin meel ugama yimaado ari uma xaraysna geel uma xaraysna yaa rabbi yaa kariim ninkii waxba ma hayo ma shaqaysanayo ilaahay baa ii maqlaya duhurkii baan hadda gelaya tukanaya ilaahay baa ii maqlaya ilaahay inantaana waxaanu u diray 99 isina magac ilaahay waxaanu uga baryeena way naga soo farxisay Allah ka farxi way naga aakhirana fil janna adduunkana fil nimco aakhirana fil janna kulligeen inta noo wadana ilaahay maxaan uga barina in cadow Allah ka qabto oo cimrigooda raajiyo oo madaxooda raajiyo oo mijahooda taro Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.